saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan idin tusi doonaa hal program oo yar oo browserku dhan madow kaaga dhigaya iyo hal badhan oo yar oo computerku dhan madow ka dhigaya faa'iidada taas ay leedahay waxa weeye haddii indhuhu ku xanuunayaan ama habeenkii markaad computerka isticmaalayso ama hadad yara xanuunsanayso ama haddii maaragtay indha xanuun aa leedahay ama caadiyan qofku markuu habeenkii computerka isticmaalayo inuu madow yahay baa fiican sababtoo ah indhaha waxaa kaaga baxaya iftiin badan ayaa kaaga baxaya saa darteed waxaan idiinla tusaya oo idin fahansiinaya oo keliya sidaad madow computerka dhan uga wada dhigi kartaan aan isla socono markaas marka koowaad waxaan soo qaadanaynaa sidii aanu computerkeena markaa madow uga dhigno intaynan Chromekii waxaa ka dhigin computerka startidiisa ayaad imanaysaan kadibna waxaa ku qoraysaan waxaa loo yaqaano dark mode ayaa ku qoraysaan dark mode ayaa ku qoraysaan colorkaa tegaysaan colorka markaa tagtaan oo dark mode ay idiin soo baxdo halkan hoose ayaa tegaysaan halkan hoose aad tegaysaan waa kuwan colorskii iyo lightkaasad waxaad u bedelaysaa dark lightka ayaa dark ka dhigaysaa dark markaa ka dhigto waxaa madow kuu noqonaya applicationskii iyo taskbarkii ayaa madow kuu noqonaya laakiin madow kuu noqon maayaan tusaale ahaan websaytadaad ku jirtay sida websitekeena lastig oo kale ma kuu noqonayo madow marka maxaad u baahan tahay meel madow kaaga dhigaysa kan waxaad kaloo u baahan tahay tusaale youtube-keena oo kalaa soo gashay waxaan u baahanay inaan madow ka dhigno youtube-ku markiiba madow buu kuu noqonayaa hadduu kuu noqon waayo badhankaasaad soo furaysaa account-kaaga magaciisa markaad soo furto waxaad kasii gelaysaa meesha ay ku taalo aan idiigu soo celiyo waxaad tegaysaan sawirka maaragtay account-kaaga ama gmail-kaaga waxaad dhahaysaa youtube appearance ayaa tegaysaa appearance markaad tagto daaqadanaa kuusoo baxaysa light theme hadday ku saaran tahay ka qaad use device theme ayaa ka dhigaysaa okay waayahay youtube-kii waa inoo bedelmay inagoo kaa isticmaalayna laakiin halka ciladay taagan waxay tahay website-kan cadaankiisii ayuu kuusii ahaanaya maxaynu marka u baahannahay waxaanu tegaynaa google-ka saynu uga dhigno kanoo dhan isagana waxaa loo yaqaano madow markaan tagno waxaan ku qoraynaa dark reader extension intaasaa ku qoraysaa google-ka waxaa ku qoraysaa dark reader extension ayaa ku qoraysaa waa dark reader extension intaa maraa ku qorto for Chrome waliba raaci haddii aad doonayso kaasaa kusoo baxi doona kaasaa kusii dhufanaysaa maraa ku dhufato wakaas halkanuu ku imaanaya anigoon kusoo daray remove badha iminka removede marka add ayaa dhahaysaan idinku iminka waxaan dhahaynaa maxay back ayaan dhahaynaa add to Chrome baan leenahay marka add to Chrome baan leenahay add extension ayaan dhahaynaa add extension waa lagu soo darayaa markaa wakaa madowga waa lagu soo daray saa darteed iminka haddaad eegtaan website-kii oo kale oo aan refresh garayno lastig website-keedii madow buu noqday course isku dhufo eena madow bay noqonaysaa BBC iyo meel kastoo kaleba gal madow bay meel walba kuu noqonaysaa waa si aad maaragtay u akhrisato habeenkii oo kalea computerka u isticmaasho ama indhahaba uu kaa dhibayba waxaana wanaagsan habeenkii in madow laga dhigto haddaad doonayso inaad kan iska xidho oo aad madowga iska xidho waxaad samaynaysaa halkanaad imanaysaan barta badhanka yar baad soo furaysaan extensionska halkan extensionska yaalaan waxaa ku dhufanaysaa manage extensions maraa ku dhufato waa kuwa inoogu duuban dark reader hadeer wakaa off ayaa ka dhigaysaa off maraad ka dhigto browserkaaga wuxuu isku bedelayaa cadaankiisii ayuu ku noqonayaa waayahay marka hadda refresh garayso ama aad remove baa dhahaysaa haddaad maaragtay inactive ka dhigto ama isaga oo halkan kaaga furan extensionska remove dhahaysaa waa haddaadan maaragtay u baahnayn remove baalaa ka dhahaysaa haddaa iska saarta marka uu kaa baxayaa marka saaxiib farsamadan waxaad iga caawinaysaa in maaragtay meel walba aad ka dhigataan madow aad ka dhigataan si indhuhu aanay computerka idinku xanuunin marka taasaad ugaga hortegi kartaa mar walba waxaan rajaynayaa asxaabta kale maaragtay aan arag inagana inaad la sii wadaagi doontaan sayana uga faa'iidaystaan isticmaalka computerka habeenkii waxay kaloo kaa caawinaysaa computerku tusaale ahaan haddii iftiinka browserskiisu ay kaa maqan yihiin brightnesska laftiisa waad uga faa'iidaysan kartaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada casharka saaxiibayaal asalaamu calaykum